dowladnimadii lala dhumay meel khaldan loo socdo marka waxaan leenahay wadada sharciga iyo dowladnimada u soo laabta waxa hadda aad sameynaysiin horay ayaa loo soo baroobay 33 sano wixii soo socda inaad dib ugu laabatiin runtii waa nasiib darro u sameeyay 5 xisbi oo ku shiraysa magaalada Muqdisho oo ujeedadooduna ay ahayd inay ka tashadaan sidii u midoobi lahaayeen taas oo aan u aragno inay tahay arrin aad iyo aad muhiim uga ah dalkan maxaa yeelay nidaamka iyo hanaanka dimuqraadiyiinta ay horseedaysaa inay dadku mataqaana ka fikiraan habka ay wax wada qabsan lahaayeen uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka marka nasiib darro waxa ah in ayagoo mas'uuliyiintaas u fadhiyaan oo tashanayaan in ciidamada amnigu xoog ay ugu galaan oo shirkoodii halkaasi mataqaana foolxun u joojiyaan aad iyo aad uga xunnahay waana cambaareynaa falkaas waana fal ka baxsan sharciga dastuurka ka baxsan dhaqanka wanaagsan ka baxsan dowladnimada ka baxsan inay ku dhaqaaqdo oo ciidamada amniga arrintaas ku dhaqaaqaan runtii waa nasiib darro aan aragnaa waxayna muujinaysaa sida looga been sheegayo doorashooyinka oo runtii aan horena uga digaynay haddana markhaati cad ay taasi u tahay dhacdada labaad isla shalay dhacday waxay ka dhacday deegaanka Jazeera waxaa xadgudub lagu sameeyay dadkii halkaas joogay mas'uuliin iyo shacabba gudoomiyaha deegaanka oo mar dhow la soo magacaabay oo lagu yaqaano qof nabadeed oo mas'uul inuu yahay ka soo jeeda dad nabadeed oo aan waliba dadka hubeysan aan ahayn lagu dilay halkaas laba qof oo dhalinyaro ah uga tacsiinayna ahalkoodii iyo qaraabadoodii sidaas oo kale ummadda Soomaaliyeed ayadana waxay muujinaysaa yani waxshinimada iyo sharci ku tumashada ciidamadu ay sameynayaan iyagoo caburinaya mas'uuliyiinta iyo shacabkaba taasoo ayadana ka baxsan dastuurka iyo qaanuunka lana isticmaalayo hubkii iyo mataqaana awoodii loogu talagalay in lagula diriro al-shabaab iyo dadka ka soo horjeeda nabadda runtii iyadana nasiib darro aan aragnaa dhalinyarada dhimatay ilaahay u naxariisto ahalkoodii qaraabadoodina sabir iimaan Allah ka siiyo ayagana aad iyo aad uga tacsiinayna waxaa jirtay laba dhacdo kale oo ka soo horeysay oo midna lagu sameeyay ururka haweenka qaranka oo looga bixiyay hoygoodii iyo xafiisyadooodii si aad u foolxun loola dhaqmay xabsiya la geeyay runtii lagu sameeyay wax aad iyo aad uga baxsan dhaqanka wanaagsan iyo dowladnimada haweenka Soomaaliyeed oo la wada og yahay sida uga qayb qaateen dowlad dhiska habeen maalin u taagnaayeen in ay dowladnimadu ay soo istaagto in la xalli waayo oo lagu xalliyo boolis iyo in la xiro ayadana nasiib darro aan aragnaa waan cambaareynayna sidaas oo kale ganacsatada magaalada Muqdisho oo ayagana bariyahan culayska lagu hayo aad u soo badanayo keentay suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho inuu xirmo ayadana waxaan aad iyo aad uga xunnahay waaye dhaqaalaha waxay ahayd in la dhiirigeliyo ganacsatada si uu u koro ilaa wax soo saarka ma jiro dalkan wax soo saarka ma socdo ugu yaraan in la dhiirigeliyo ganacsiga ahayd marka canshuuraha aan meel loo dayin maalin walba la saaro ganacsatada waxay keentay iyadana inay suuqadu xirmaan taasna iyaduna waa arrin kale oo runtii aan u adeegaynin dowladnimada markaan isku soo darno dhacdooyinkaas iyo kuwii ka soo horeeyay waxay muujinayaan in la marin habaabay dowladnimadii lala dhumay meel khaldan loo socdo marka waxaan leenahay wadada sharciga iyo dowladnimada u soo laabta waxa hadda aad sameynaysiin horay ayaa loo soo baroobay 33 sano wixii soo socda inaad dib ugu laabatiin runtii waa nasiib darro marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed sharafkeeda iyo karaamadeeda in lagu tuntaa ayadoo la adeegsanayo magaca dowladnimada runtii waa nasiib darro dalkan dhibaatooyin fara badan ka jira ha noqdaan dhinaca amniga oo aan wada ognahay ha noqdaan dhinaca dhaqaalaha yani dad badan oo dan yar maanta ma haystaan noloshoodii ma haystaan marka maalinta ka dambaysa in la sameeyo waxyaabo runtii si dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka masaakiinta ah nasiib darro aan aragnaa marka waxaan leenahay u soo laabta
caqliga wanaagsan iyo dowladnimada sharciga in la ilaaliyo oo dastuurka la ilaaliyo dowladdu waxa karahay laguma aha karo qorayaan sitaa ciidan gaar ah samaystay ana waxaan doona sameeyay dowladnimo kuma amaano saadi aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.